markaan waxaad ku soo dhawaataan falanqeyn ku aadan muxuu socdaalka ra'iisul wasaare ka bedeli karaa khilaafyadii iyo kala tagii ka dhex jiray maamulka galmudug. qodobkan waxaa falanqeynaya oo si wada jir ah uga qayb gali doona Hareeri Xasan Barre oo ah gudoomiyihii hore ee Balanballe, Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed iyo Nabadoon Cabdi Axmed oo labaduba kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed. falanqeyntan sidan ayay u dhacday. soo dhawaada ayaan idin leenahay dhamaantiin. waa dhowna waayahay Hareeri, xaggaaga haddaan ku horeeyo marka hore bal waxay nooga taabataa maamulkan hadda galmudug ee ka jira ma faa'iido ayuu bulshada u keenay mise khasaare iyo dhibaato ayuu u soo kordhiyay si guud ahaaneed markaad uga hadasho? haddii aan si guud uga hadlo maamulka galmudug khasaarada ma keenin, faa'iidana ma keenin. sababtoo maamulka galmudug ilaa markay gashay magac muska ah waxna ma qabanin, khilaafaad baa hareeyay iyo iska dhibaato. marka waxaan u arkayaa maamul dhisay laakiin aan shaqaynin inuu ahaa wax dhibaatana ma keenin, wax faa'iido ah oo hadda la taaban kara oo u keenay deegaanada ma jirin. way deegaanadii loo dhisay kuma xirna ma saameynin markii si hore oo ku dhisnay ambalaan oo aan aad isugu raacsanayn. markastana oo kalena waa hadda waxbaa ka socnaayay. marka dhishii soo saarso hadda xaguuji rajada dambe oo faa'iido doonta. waayahay Cabdi Axmed, maxaad ka oranaysaa isla su'aashaas? waayahay horta maamulkaas isagu iswaarintiis waxna ma kordhin waxna ma dhibin. marka waxaan leeyahay horta maamulkii hore ee galmudug wax uu keenay lama arko, kana waa ka sii daray. marka waxaa leeyahay Soomaaliya tirageer darartii waaba kaga daray. marka awal iyadoo xumeed baa ana iyadoo awal xumeed xaaladeeda la bixin waayey ma wax shaqeeye la arag buu hadda nin la yidhaahdo khayr tegey. marka meel walbana wuxuu dhigay foolkaan uu dhigay. hadda ka sidii la isu keeni lahaa baa dhib ku jira. waayahay maxaad cabiraysaa dhankaaga Nabadoon Guuleed? waxaan cabirayaa horta faa'iido khasaare wax ka dhaxeeya ma jiraan. maamulkaasi khasaaru keenay waana loogu talagalay. mar hadduusan faa'iido keenin oo dadkii heshiisiin oo maaragtay dadkii uusan dad israacsan oo meel u wada jeeda ahayn oo wax ku heshiiyey waa khasaaro. marka khasaarooyin badan buu keenay, loogumana talagelin ba hadda maamuladan inay faa'iido keenaan looguma talagelin. wax shisheeye gadaal ka riixayo shisheeye soo dhisto meesha keentay oo dalka lagu googoynhayo weeye. haddii faa'iido laga rababa dalka lama googoyano maamul goboleed laguma sheegano galmudug iyo hadlaayo laan iyo horta lama yidhaahan oo dhan kulli waa aragtay wax ummadda iyo dalka khasaare ku ah weeye. marka faa'iidada haddana laga surumahayo horena laguma arag. dalku waa iska sidaas muran iyo maaragtay meelaha qaarkood dagaalo sokeeyaa ka jira, dib baa ka taagan. marka wax faa'iida ah oo maamulkaasi soo kordhiya male, dhibaatooyin mooyaane. waa tahay Hareeri, waxaad sheegtay maamulkii inuusan shaqayn, faa'iido iyo khasaare labadaba maanu keenin baa tiri. maxaa u sabab ah inuu shaqayn waayo? waxaa u sababa markii ugu horeysay oo galmudug bilowga hawsheeda 2013 baa waxaa la isu keenay koonfurta gaalkacyo galgaduud iyo hiiraan ayaa xamar la isugu keenay xilliga xasan sheekh. waxaana lagu shiriyey xalane isugu keenay wasiirka arrimaha gudaha oo ah Cabdi Guuleed. marka nidaamkaas shirkaas ah in la dhiso dowlad goboleed xal yiraahdo oo hiiraan ka mid tahay. arrintaas waxaa ka soo horjeestay oo diiday gobolka hiiraan oo nin la qayo la yiraahdo gudoomiyey waa asoo ku sheegay oo yiri anaga gobolada oo lama samaysan karna buu yiri. sababtoo ah buu yiri hadda shirka waxaa yiri madaxweynaha galmudug oo gaalkacyo ah, madaxweynaha xanan iyo xeer oo cadaadaha gudoomiyihii gobolka oo dhuusamareed jooga meelaha kalena joogin sabab ku lahayn iyo soo jamaaco oo haysta magaalada dhuusamareed iyo degmooyin kale oo ayagu shirkan ka soo qaybgelay. dadka loo caasha ama ku dasarmeen yiraahdeen waa ka sheegay Iiraan way soo Iiraan way ka hadlay. waxaa la abaabulay markaas gobolka galgaduud iyo koonfurta mudug in laga dhigo dowlad goboleed. shirka waxaa la bilaabay 15 aniga gudoomiyaha balbaan ahaa
waxaan nimid dhuusamareed baan isugu dhigid balanballe iyo degmada cawda iyo degmada dhuusamareed iyo degmo kale oo hore markaa waxaa jiray oo gobolka ah galgaduud xaggiisa marka la eego cadaado oo iman xirtoobay laakiin aan kasoo qaybgelin muddo ayaan fikirkaa ku wareynay meelaha la haysto oo ceeldheer iyo ceelbuur iyo galhareer iyo dad matalaya reer dhuusamareed loogu yimaaday waxay noqotay hawshii in shirkii cadaado ha lagu qabto dowladda ha lagu dhiso iyo lagu dhisi maayo magaalada madaxa dhuusareed ha lagu dhiso baa la siiyey madaxweyne xasan sheekh ayaa xoogga u saaray in loo helo shirka degmada cadaado oo lagu dhiso dowlad goboleedka galmudug la yidhaahdo arrintaas waxay ku guulaystay in cadaado odayaashii beelahii ama ka yimid qabeelaadka ka yimid ama ka yimid degmooyinka halkaa lasugu geeyey markaasna waxaa ku haray dhuusamareed baa ku hadhay kadib loogu guuray waxaa dhacday xaggaa markii laisugu tegay waxaa la dhisay maamulka galmudug marka dhisana heshiis fiican laguma dhisaynin beela ayaa ka baxay oo dad baa ka baqnaa ka daree ka tegey si kastaba ha ahatee waa sheeko dheer baa la sameeyey baarlamaan madaxweyneha la doortay baarlamaankaasi madaxweyneha la sameeyey iyo maamulkaa la sameeyey waxay soo xallin waayeen khilaafaadkii galmudug waxay soo xallin waayeen dhuusamareed oo markaa laga go'oy suna waa jamaaca in badan markay arrintaas waxay isbedeshay haddana waqti dheer ka dhacay cabdikeli waa iscarsali xeef baa yimid xeefna waad ogtihiin kulligiinoo haddii wax hogaani kama noqonin waa markii way kala jabeen waa sidii kusoo biyey qolaan dhuusamareed dhuusamareed digay qoladii kalena ayaga xagga digay cadaado oo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiye baarlamaanka xagga degay halkaana waxaa degay dhuusamareed maxaa yimid xeef oo madaxweynihii galmudug ah iyo madaxa xukuumadda oo shakshaag jira oo rasuulka jamaaca ka yimid xaggeeda dhibaatadaas kamay bixin weligeed haddana ayagu jimna ay ka shaqaysay oo ka dhacday oo dadka isku yaayo khasaare keetira ma jirin waa sheeko dheer waa sheeko dheer intaas way fahmi karayaan dhegeystayaasha markaas ba waxaa arkay inaysan waxba soo kordhin hal ah xataa haytal guud oo raaci karoo fiicanna aysan keeninin waxaa soo hadda wasaaraha iyo malitaanka hadda u maraya waa tahay waan geli doonaa taas waan geli doonaa hareeri waan geli doonaa ra-iisul wasaaraha iyo socdaalkiisa waxaan siinayaa nabadoon cabdi axmed nabadoon waad maqlaysaa maraaxiisha uu ka sheekeeyey hareeri maxaad halkaasi raacinaysaa ama kaaga baxay waxaa iga baxay horta hareeri bayralaha siiyo horta khasaaro keenay sida nabadoonka hore u yidhi ehlu sunna horta dadkao dhan baa ah waxaa fiican qofka magaciisa in la yidhaha noo ehlu sunnaa nahay nimankaa sufaa la yidhaha sufa marka waa niman ayagu dhuusamareed tegey waa khasaaray keeneen markii galmudug loo keenay waa duuleen gurceel bay dadkii kuwa baasha la yidhahdo xeraale ummad iyo ku baabasheen cadaaday ku duuleen dad ku laayeen meesha la yidhaahdo cabud waaqay ku duuleen dhibaatay geysteen waxay ku duuleen meesha la yidhaahdo hadda dagaalkan ka socda meesha la yidhaahdo matabaan horta maamulkaas galmudug kuwa u horreeyey markii lasoo raray horta dhibaato keenay hadduu hareeriyo dhibaato ma keenin dhib ka daran qof muslimoo la dilo oo bikayr xaq lagu dilo wax ka daran hadduu ogyahay asagaa sheegi doona maamulkaas marka markii la yagleelay haddaan diin islaam lagu dhisin waxaa la yidhi safarkaas si lagu waday iyo suus qayaanaha inuu samatago badan marka khiyaanadii kii hore lagu dhisay iyo sadbursigii iyo isku dayntii iyo isku diridii iyo halaagii iyo hooggay wadeen waa midka haddeer sidaan soo gaarsiiyey kalkaloo la wadaana waa sidaas haddaan ilaahay loo dhowaan oon kitaabka ilaahay la qaadan oon wax xaqa dadka macnaa inta loo sheego aan wax loo qaybin waxaan u malaynayaa meeshaas kolley nin kasta waa garan karaa waa qaybta sadbursi yimaado dhibka ka yimaada waaya nabadoon guuleed markii ugu horreysay oo la isku dayay in khilaafaadka la xaliyo oo xaaladda la fariisiiyo ama la jaangooyo waa tan uu sheegay hareeri in xerada xalane looga yeeray oo halkaas lagu shiray idinku haddaad tihiin waxgaradkii gobolka ma ka mid ahaydeen dadkii tegay xalane maxaadse ka filinayseen shirkaas markii hore horta annagu meel soomaali raba in lagu shirqoolo soomaali lagu baaba'sho annagu ma aana ka qaybgelin mana ka qaybgeli doono haraari wuu sheegay oo wuu caddeeyey in xalana la iskugu yeeray xalanana meel maslaxad soomaaliyeed lagu hayo ma ahan gaalada dalka kusoo duushay oo dalka googgoysay oo ummadda baabi'isay
ayaa fadhiya nimankaan xalana la iskugu yeerana adeegayaal weeye oo maaragtay in sidii ay dalka ku qabsan lahaadeen gaaladu ayaa loogu yeero wax gaaladu soo qaabaysata weeye xalana soomaaliya ma joogto gumaysi baa qabsaday dalkoo dhan intuu gumaysigu qabsaday intiisa badan ayaa meesha gumaysigu saldhigiisa oo laga helo oo dalka iyo dadka laga baabaasha waa xalane marka Harari wuxuu cadeeyay in maaragtay xalana la isugu yeeray xalanana ummadda Soomaaliyeed waa ogtahay meesha soo duulayaasha gaalada oo reer galbeed ay degeen inay tahay inta la isugu yeerana oo Harari ka mid yahay hadduu ka mid yahay inta la isugu yeero dhan waa dadka loo yaqaan afka qalaad ama dabadhilif loo yaqaan oo dalka lagu qabsaday ummadda Soomaaliyeed lagu khiyaanayo lagu baabi'inayo hadda Harari laftigiisu 10 sano waa dhabtay intuu balbal gudoomiyaha ka ahaa Itoobiya shisheeyaha cadawgii Soomaaliyeed ayaa dadka ku xasuuqayay waligiis kama aana maqal dadka shacabka ah naga laynina halkaasuu maaragtay iska fadhiyay magacayaal buu ahaa waa dadka maaragtay laga xalana laga soo agaasimay xaaf waa sidoo kale khayra waa sidoo kale kad madaxweynaha sheeganaya waa sidoo kale gaalada maaragtay ku soo duusha oo wadato iska hormarinayso ummadda Soomaaliyeed ku qalbaysa marka dadka yaan been loo sheegin maamul aana jirin galmudug iyo maaragtay hiiraan laan iyo maaragtay teebaraariyo ummadda Soomaaliyeed yaan lagu qalb oo raggaan Harari ka mid yahay waxaa leedahay war ilaahay ka cabsada oo dalkiina idin deeqa oo kulligood sandareertada xoro maaragtay gaaladu idin siinayso waa dalkiina waxay idinka siinaysa dal barwaaqahaad haysataa markaasaad maaragtay Itoobiyaan iyo gaalaha un dabadhilif u tihiin u noqonaysa marka ummadda Soomaaliyeedna waxaan leedahay yaysan idin degina fadhiga ka kaca waa tahay iyo khayre iyo maaragtay farmaajo midna dan idin maayeen aan ku soo laabto wuxuu sheeganayaa madaxweynaha federaal waa ninkii yidhi muqdisho dagaalka waxaan uga wadnaa shacabka Washington baan ku difaacayna baasaboor Maraykan uuna haysta ummadaan hurdo waxaan leenahay hurdada ka kaca waa tahay aan ku soo laabto nabadoon guuleed dhegeystayaal weli falanqeynta ayaan dhex maquuranaynaa waxaan jecelnahay dooda inay miro dhal noqoto oo si shakhsi ah aanan la isku eegin balse arrinta si guud ahaaneed loo eego waana anshaxa dooda ay ku soconayso Harari waxaan gelaynaa socdaalkan Xasan Cali Khayre dadka qaar ee siyaasiyiinta ah sida shirkii cadaado oo kale waxa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu isku dir iyo xaaladii inay sii xumaato uu ka shaqeynayo qaar kale oo siyaasiyiin waxay leeyihiin ole iyo doorasho iyo maadaama waqtigii dawladda uu haatan marxaladii dhexe ka gudbay oo uu sii dhamaanayo in taageerayaal iyo wax uu ka raadsado maamul dawladda si toos u taabacsan ay ka dhisaan qaar kale waxay leeyihiin nabad ayuu ka keenayaa adigu fikirkaaga muxuu yahay maadaama xoggaal aad u tahay socdaalkan ra'iisul wasaaraha uu maaragtay ku joogo hadda gobolkaas qayb ka mid ah mudug iyo galgaduud marka horeysa idaacadda waxayna weydiinaysaa aragtiyahan ka qabno siyaasadaha galmudug ama horey wala imaacadda ka jira dadka ay wax weydiinayso oo guuleed ka mid yahayna qof walba hadalkiisa iyo aragtidiisa ba asagaa iskale taas midaas waa mid hadalkii odayga ka hadlaysaan in yar oo xalanay annagana waxaan ahayn maamuladii goboladaas dhace dawladda loo yeedhay waxayna keentay xalane meel kamida waana ku siiyey in meelaha laga sameeyo maamul baan usugu nimid sidii heshiiskaas laisku afgaran waayena waan ka soo hadlay taas middaa weye midda kale waxaa weeye socdaalka Xasan Cali Khayre socdaalka ra'iisul wasaaraha waxaan u arkaa guul u soo wareegtay gobolada dhexe iyo Soomaaliya iyo galmudug ayaan u arkay anigu waxaan dadka qofkii haddii wax la weydiiyo qof aragtidiisa uu sheegayaa iyo sida asugu ama siyaasadiisa qaar kuwa jaantahay qaar wax jecel yahay sheegayaan qaar waxay la tahay sheegayaan aniga marka waxay la tahay sheegayaa wax kale ma sheegayo waan jeclahay waxaan u arkayaa waxaan kasoo sheekeynay galmudug intay soo jirtay waxba ka hagaagin intaa waxba kasoo hagaagin khayra ma tegin mana dhex marin risaale ma tegin madaxweynena ma tegin hadda kuwaan dalka joogaa hadda haddii usoo jeestay dowladdii oo risaarihii tegey oo degmooyinkooda maray
وهذا قال كعيه وتوجو وهو أرين بوله وأرين وهذا هويه وهو رساله دور وين كعيه ميلو ترى ولا اللي قصد هويه وعلى الشيء أنت كنت كماتي بالميكو هو هلا قلنا يقول الصوت ويقول قلنا يقول هلا ويشيء أصلا إنتاج يذكرها عن أيو كشغيري أبدا كشغيري يعني هلكاس هذا وصليري واتاي على لو كانوا ومن أول كده ويسمعوا في ملايين سوين وين الإسقاط دلوا وياه إنه كل هذا دولة الحق على في الشارع ولا جو مرمان وهنا في شيء ولا جو مرمان لكن هذا هو النصرة إن لا حاجة ذلك أو الجبلية لا حاجة شيء بسوء كيف لو أنت صرت بعمرك إن الدنيا في حاجة تاش waya cadaado oo kale si qaas ahaaneed waxgaradka matala kuwooda ugu waaweyn waxaa kamid ah Cabdi Axmed markii ra'iisul wasaaraha uu ka tagayna waxaa dhacay shirar si aad looga soo horgeestay Xasan Cali Khayre iyo ololaha uu wado Cabdi Axmed maxaa ugu wacnaa arrimahaas أنا وقت بركة على ذنك أدنى وين شوبا كم مقلني أنت مثلا وعلى الربا وحي روما إن لقى حضله أرجع على كير الشرب أو مقطرانية أبرجي الكلام هاي الناس اللي راحوا بيو ولو بلسيه بيش سنة طبعا كذين وفرمه ويسوي معنا يا شرط حبنا هذا أبرجي دي حتى الشركات وفشلين وآدم ما هنا واحد دولة النماء واحد سودانا منا كانوا معادي مكان كذا اللي لقى حضله دولة الشيء يرحل مطورة سنوات ترى هل فصلنا ذلك متين ذلك ما ينتين واضح دولة أمريكا حتى على خير وحكروا السعودة لما أحكوا كيف كلامنا ملأ الدولة نما وما السعودة أنا إنه ذاتك واحترا وما السعودة بس مريا وبمبات دقي ما كتجي وغير عدد دقي بمبات مثل عبد وأبو جي حنا لو ده دقي وهو ده جي ماشي اللي يرادو بس مريا هذا بدور بس مركب هو ممكن تسخر عليه كقبطي حد رجال كعنا وقت كقبطي وهي هذا ولا لو واحد هذا وطنه وكرم ما إنه مركب عليه حتى على خير كستيس الله كنا قال لي أنا waya marka shirkaas aad sheegtay in hobyo la doonay in lagu qabto isaga qudhiisa yaa watay yaa soo qaban qaabiyay shirka waa soo qaban qaabiyay beesha barkiga soo qaban qaabay waya siyaasadda ma waa midnimo ayagu ay leeyihiin oo wax kale oo iyo qof kale lagu la duulay dad kale lagu dilay gaalo warkeedu tanaasul isugu jiray way kala lumeen 200 oo maaragtay meeloodii kala aadeen markaas duqowdoodii iyo ganacsatadoodii waxay go'aan ku gaareen inay shir dhigaan si dekad ku dhistaan macnaha si maamul ayagu ay leeyihiin oo madax bannaan ay u helaan waxaan siinayaa guuleed inkastoo la yiraahdo qabiil keligiis is urursaday oo meel degay dawlad ma noqon karo horumarna ma sameyn karayo haddaanay ummaddu mideysnayn waxaan siinayaa guuleed hareeri hadalkiisa waxaa ku jiray in degmooyinka qaar gobolka Galgaduud ay yihiin kuwo xor ah qaarna la xoreeyay marka farqi ayaa u dhaxeeya halkaas xitaa waa lagu kala aragti duwan yahay annagana falanqaynta waxa uu qabanay waxay tahay in macluumaad daqiiq ah ay helaan bulshada gudaha iyo dibadda intaba naga dhageysanaysa degmooyinka gobolka maanta intee xor ah intee gumaysi ku jirta maadaama aad tihiin waxgaradkii gobolada Mudug iyo Galgaduud أنا شيء عبد أحمد أنا كوسو لابت عبد أحمد قولي ذا سينيا وحا حرة انت سريعة الإسلام كاللغم معموله وكتابك ألا ما عرقت وكسب أيها حرة معمول قبل يديبا انت أي معموله انت هو الجميسي وانت بيه ما عرقت هي غير قلبي الهوف تقول لك بصريوي كوا انت ما عرقت الجميسي هرارينا وحو ياش ومقلع يا هذا الكيسة مالها الحرية هذا واحد الله حرين هيا عدوه يوم ما رجتي ومدي الصوماليين واللي جوريتين هيا يوم ما رجت عدوه اللوج عندنا هيا مركب النوى الدوار رأي كيسة أو هراري أصلا شيء النوى الرأي كيسة الله هيا مركب من كيراها مالها مامو قبل يجدوا كثيران بعرة أما هو الرأي كيسة نما وعبي أما واحد ماركتي دبدي في جالد أديك ستوي وحارة أو ماركتي ليش الصومالي كتابك الله ومعموله صومالي ضد المسلمين ويا شيء كريه أو إسكور رأي كرتا كتابك الله وسوي
aad sidaa leedahay aan kaa dhex gale meelaha lagu maamulo weydiye xagee weeye waa halkee meelaha shareecada lagu maamulo guuleed waxaa ka gobolada intooda badan meesha hadda inta u xigta xaraf dheere iyo haa haddii laykuron yahay kamid ah inta aan maamulkaas galmudug iyo maaragtay hirshabeelle aysan soo gaarin oo nimankaas aysan ciidamadooda aysan joogin ayaa kitaabka lagu maamula oo xora maaragtay dalkaana ayagana haddaan un la daafcin gumaysigu waa dabsadaha sida maaragtay galmudug iyo uu ka yeelayo muqdisho kale uu ka yeeli lahaa dalkaan maaragtay ummaduna wanaag iyo madabnimo gaari mayso inta maaragtay gobol gobol iyo raadinayo nin dhuuni qaata ah uu leeyahay aniga madaxweynaha layga dhigo dalkiibaa la kala googooyey federaalka soomaalidu waa dad iska yarba sideedaba oo dad federaal loogu talagalay ma ahan waa dad isku diina waa isku luuqad waa isku af waa isku dhaqan marka yurubkiibaa midoobay oo kala afa oo intaasoo dawladeeda oo tiro badan oo dhaqana oo lacag midoobo lacag yuuro la yidhaha wada samaysanayo soomaaliya 20 milyan ama 30 milyan in la kala googooyo sax ma ahan waa gumaysi cad weeye waa maaragtay dalkaana waxaa laga rabaa etoobiya kilirkii shanaad bay soomaalidaas lagu sheegaa kana waa kilirkii lixaad waxaana la yidhi geed baa yidhi gudunay ima daysana gobolkaybaa kugu baaban hadda maaragtay rag oo maaragtay xaaf iyo ka mid yihiin iyo haraari iyo ayaa dalka gumaysiga u majaxaadinaya oo dadka u gacna xirhaya waa tahay waxaan siinayaa hareeri ayaan siinayaa waa tahay goboladii maqnaabaa haddii laykuurayay ilaahay idankii aroodi doona iyagu aan siiyo hareeri xasan bar soo koob mar haddaan dawladnimo la argo wadanka dawladi ka jirin dawlad la helahaya abargidurtuna hadda anigu mucaaradi maayo inay hobyo ku shirto oo tidhaahda war maxaa noo xala waxaan rajaynayaa inay yidhaahaan kitaabka alle ayaa noo xala oo kitaabka alle ku sooman ayaan cabdi axmedna maaragtay ku baraarujinaya waa tahay hareeriyow marka la eego dastuurka dowladda federaalka ah gaar ahaan dhinaca federalismka waxaa ku qoran in 2 gobol ugu yaraan iyo wax ka badan federal ay noqon karayaan galmudug ma dhan yahay 2 gobol oo dhammaystiran dastuurka galmudug waa 2 gobol ka mid iyo gobolka galgaduud baa ku qoran maya laakiin su-aasha haddaad toos u abaarto hadda maamulka galmudug ma dhan yahay 2 gobol ee soomaali ay taqaanay ee galgaduud iyo mudug waxaan rabaa aniga dastuurka dalka wuxuu sheegayaa 2 gobol wixii ka badan weeye gobolka marka dowlad goboleedka galmudug dastuurkeeda waa gobolka mudug iyo gobolka galgaduud saas ayaa gal mudug loogu bixiyey waa gartay marka ma dhamaystiran yihiin waxaan ula jeeda waxa weeye waan u gudbi doonaa fursad waan ku siin doonaa waxbaa ka maqan marka shuruudii taas waxay ka dhigan tahay dastuurkii wixii ku qornaa iyo shuruudii ma dhamaystirna see lagu yiri marka maamul dastuurka ku dhamaystiran anaga hadda way tusaale ahaan gaalkacyo labay u qaybsan tahay qayb waxaa la yiri waa Puntland qayb kalena waxaa la yiri galmudug bay raacsan tahay marka 2 gobol ma dhama Soomaan xaqiiqda marka loo hadlo waan ka qaaday oo 2 gobolka mid gobol weeye haddana gobolka mid ayaa wax bay maqan tahay dadkaas dastuur ahaan galmudug waxay ugu qoran tahay gobolka mid dadka ugu qoran dastuurka gobolka mid gobolka ku qoran dadka hadda ninka meesha leeyahay meelaha horta oo kitaabka ugu xukumayo islaamku uu sheegayo oo looga tilmaamay xaalad dheere bacdu xusni xaggan waxa qaadanayna eeldheer inuu xuso iyo galaadeed eelbur xuso oo kale meelaha horta soo looga talagalay ka weeyay marka dadkii asaas baa waxa istaqraar haysta oo shabab baa haysta aan laga magac eelbur tam dawri dadka oo magaca dhaliilaya oo dowladda Soomaali taalaya gobolada ma hadda abarkiisu ka hadlayo maayo marka waxa la fiiraa weydiiso maamulada al-shabaab iyo xaq u kala qaatanayo waxay doonayaan in meelaha kale ka dikaasina ka weydiiso annagana laga weydiiso ayaan kale Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya gobolada
iyo waxyaalaha ka jiray si loo axrin kara iyo anagoo si wanaagsan ulama inaan wax u tilmaano anagaa naga wadayso. waa tahay gabagabada ayaan ku dhownahay. cabdi axmed maxaad raacinaysaa halkaa? bismillah. ana horta waxaan rabaa meesha idaacad wey ummadoo dhan aa dhegaysanaysa. waxaan rabaa warku inuu saraaxa leeyahay sida uu sheegay adag horta anagu kaabar gidir ahaan waxaan rabnaa inagu shareecada islaamka inaan ku maamulno dhulka aan deganahay oo diinka islaamka inaan ka beri yeelno kaanana aan ka xaaraantinimayno maalka iyagaan dadka ay ka xariman yahay nabarkooda aan ka xarimanahay wax xuquuqda aan leenahayna dalka inaan ka helno dalka iyagana waxaa la ogyahay maanta markii uu sheego xaqiiqa cad ah adduunka Kenya wax ka liita lama arko. Kenyana waa taa ilaayo ceel waaqi waa taa soo fadhisa ilaayo magaciisa ordaysa ilaa Kismaayo dalka xor maahan mana noqonayo iyadoo shareecada islaamka inta laga oogo oo aan jihaad loogu bixin Kenya xoolaha laga dhicin kuwa shabaab horta yihiin bal weydii al-shabaab Soomaaliya ma Kenya ma Maraykanka horta ninkan la yiraahdo waa le al-shabaab waa qoladee waxaan u arkaa shakhsi ahaan inaan ka hadlayno anagu laakiin aan ka hadlayno dalka Kenya inay badii qaadato berigeeda qaadato kaadna indhaan nooga rido walaalkii Hareeri ma wax fiican ah bal xaradheera iyo aduu aad wallahi taballahi sadii rabaadu qolada naanta haysteen laakiin Kenya iyo qolada iyo ragga aad sheegayso yaa roon labadaas aan rabaana qolada gaala madowda halka fadhiyo iyo nimanka kitaabka alle ku xukumaya labadaas yaa roon. waayahay waan ku soo laabanayaa cabdi axmed waxaan siinayaa guuleedow xaqiiqda in la abaara ayaa habboon odayaashii gobolka ayaad ka mid tihiin adinka qudhiina waxyaabaha qaar waad iska indhatiraysaan ciidamada Itoobiya ayaad la socotaa in muddo badan ay ku sugnaayeen goboladan gaar ahaan galgaduud qaybo ka mid ah muddooyinkaas waliba Hareeri wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Balambal markaas maxaad ogala hadli weyseen oo dhibaatooyinka ay ka dhacayeen gobolka oo Hareeri aad ugu tagi weyseen ama Itoobiyaankaas qudhiisa aad uga saari weyseen gobolkii saa waxaad tihiin wax garadkii? Hareeri horta Itoobiyaanku ka mid yahay inta dastuurka maaragtay aan kitaabka alla maaragtay ahayn wax ku xukuntaa horta gaalo weeye Itoobiyaanka la mid yihiin Hareeri iyo dadka la midka ah baaligiintaas iyo kaafiriintaasay ka mid yihiin nimanka maamulada sheeganaya ilaahay baa cadeeyey oo kitaabka alla diiday hadda Hareeri waa ka mid niman maaragtay muslima oo Soomaali u dhashay oo dalka u dhashay oo kitaabkii alla isku maamulayo wax ku maamulahayana wuxuu leeyahay waa laga xoreynhayaa oo ma rabo Itoobiyana safiirba wuxuu uga gudoomiye Balambal uga ahaa 10 sano marka waa ka hadalada maaragtay nimanku nama ahaa gaala yihiin oo Hareeri ka mid yahay maaragtay Itoobiya intii ay dadka xasuuqaysay oo Balambal iyo maaragtay Yamaruule iyo meel kasta ku xasuuqaysay raalli buu ka ahaa Hareeri iyo dadka hadee lay kooreen la mid waxaana maaragtay waa sagaada cadeeyay in xalana looga yeerinayo marka waa ka hadalay in kale qaateen oo waa ka raafeen islaamka maamul maaragtay aan kitaabka ahayna ilaahay baa gaala ku sheegay maamul iyo sharci anigu aan soo dejin ninka cidii wax ku maamushaa gaala weeyo kaafiriin weeyo faasiqiin weeyo ma garan waayahay su'aalihii gabagabada hadda sidii baan taaganahay Hareerina waxa uu banaan baan isleedahay inuu toobad keeno naxariis ilaahay laga su'aalihii gabagabada ayaan qaybinaynaa guuleed aan ku soo laabto saddexdiinaba waa hal su'aal oo idinka dhaxeynaysa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan tuduc kamida gabayadiisii haddaan soo qaadano waxa uu ka marqaati kacayaa dawladnimada iyo ummadnimada Soomaaliyeed inay ka horeysay wadamo badan oo ka tirsan qaaradda Afrika waxa kamid ahaa mar uu sayidku oranayay adinka dalka balahe dawlad maad u noqotaan Hareeriyow waa su'aashaas way idinka wada dhaxaysaaye mar walba waxaan arkaynaa in shisheeye uu dadka shirinayo dhowr bilood ka hor Shaakir iyo Xaaf waxa shiriyay urur goboleedka Igaad hadda dhow magaalada Muqdisho waxa ku shiray Xaaf iyo nin Itoobiyaan oo leeyahay Igad ayuu ka socdaa
waxaa afkaaga aad ka sheegtay in xerada xalane aad mataqaanaa ku shirteen xalanana waa jasiirad ka go-an magaalada muqdisho oo wasiirada qaar ee dowladda ay sheegeen inay geli waayeen oo ajaanib ay ka shaqayso riboodka iyo warbixinada Somali Contact Group mar walba lagu sheego cidda ka talisa iyo cidda haysata waxaan la soconnaa gaalkacyo markii lagu dagaalamay oo dadka walaalaha ah la isku diray in gabra uu ka qayb galay oo gabra gartiisii lagu go'ay waxaan la soconaa in ciidamo Etoobiyana ee dhulkii ay soo galeen afkaar kala duwanaansho ayaa jirta marka dalka adinka leh dawlad maad u noqotaan maxaa shisheeyaha marti loogu yahay mar walba hareeri su'aashaas si kooban aan soo gabagabeeyno mawduuca soo koobayo dalka Soomaaliya waa dalka Soomaaliya la federaalka dastuurkeedu ma ogola shacabka wax khilaafsan waxaa diinta islaamka ogoleen ayadoo ma ogola taamida waa dad islaam anu muslim baa lahay aan ka dhaxgalo cafwan adigoo sii wadan doona raali noqo wax yar aan ka dhaxgalo dastuurka waxa tir wax sharciga khilaafsan kuma jiraan waxa kamida in 18 sano lagu qaangaaro waxa kamida in qof walba uu ku dhaqmi karo diinta uu doono ayaa kamida waxa kale oo kamida xeerka ciqaabta oo kale oo aan diinta islaamka ka fog tusaale ahaan tuugo kale waa la xirayaa baa la yiri waxa kamida xeerka jinsiga oo aad ogtaa culimo badan inay ka hadashay oo xeerkaas uu qorayo labada qof haday zinaystaan iyagoo raali iska ah in fasax ay yihiin golihii wasiirada ayaa qalinka ku duugay adigana waxaad leedahay shariicadii islaamka waafaqsan yahay waayahay ka soco waxaan ku leeyahay meesha asiibkii gabadhiisa ka soo qaadatay هذا مثلا لا هوية أو هذا مثل هذا ومثلا تسوق ثلاثة داري وهي يمكن منو يعدان مالين اللي جواي فلا مثلا حاله منو بده تاجي ما كان اسمه أنا لما حصل قبل عطنا عشان كذا التقاعد واتاي waxaan siinayaa Cabdi Axmed maxaad ku soo gabagabeynaysaa waa isla su'aasha ayaa taagan adinka dalkaba leh dawlad maad u noqotaan horta dalkan inagu midii dadkiila waa qaar dhintay iyo kuwa dheer weeye iyo kuwa wali dalan dadkan baasaboorada Soomaaliga jirta oo Soomaaliyeed oo nibanin sida xambaarsan yahay horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala dalka kor qaado waxaan ku sheegay dalkan qofkood Allah subhanahu wa ta'ala uu ka doonto wuxuu sameeyay dastuur qof qoray hadda waxaan arkay nabi nin la raaxo sibiil ku qoran yahay leeyahay wasiirka dastuur waa dhintay marka waa dhibaato waay dastuur uu kitaabka Ilaahay inuu aqoonto wax kale ma aqaano dastuurka xalanana waa la og yahay farmaajo maxaan dula farmaajo wallahi isgal kari billahi ta'ala iska bada qof kale xalana marka waa goob yuhuudi leedahay ee goob muslima ninkii la geeyana ando tagana isaga amalka u tagay laakiin waxaan leeyahay dalka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay isku duubnaan wuxuu u baahan yahay kitaabka Ilaahay sunnada in lagu dhaqmo Soomaaliland waxa ay Itoobiya iyo nimanka la yiraahdo waa ogtii Puntland sidoo kale Jubaland waxa ay sakeeyay Muusamareeb Amxaaro xamar gaala cadaana wardalkaana saa xorayn u baahan wax dalkaanu wax aan xorayn uma baahna Soomaaliyana waxa weeyeen in ajnabi kaliya halay waayahay guuled maxaad ku soo gabagabeynaysaa adinka dalka leh dawlad maad u noqotaan maxaa keenay in shisheeyo loo daba taagnaado wadanka iyo maslaxadiisa soo dhawow horta harari nimankiisa isku markaa tilmaamayo ka mid yahay harari iyo kuwa la mid ah maamul iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sheeganayaan waa dadka faraha oo aan diinta garanahayn marka suugaanta aan ku cabirahaya diinta aan garanahayn dawlad hanan waa daruus ba intii loo akhriyo dibadda loo qaado darinkii mar hore loo dhigay dalab yiraahaan dorogada markuu cabo oo sir laga duubo damiirkiiyo intii laga masaxo bixiga iimaanka kulliba inta lagu raro daciga loo dhuuto dameer baa marka laga dhigaa darajo loo dhiibtay sidaan doona yeel baa la oran dood ha soo celin danta reer galbeed leeyihiin iyo diinta kiristaanka malka iyo dadku iibiyaa damacna waa qaadi dulaal buu ka boorbilahayaa dahabka ceegaaga dambarkeeda dul kala cadaa darawadiisiiyo kulli buu ku noolaan hayaa gaalo daba jooga duulaanka gaaladu wadiya ama sadaabuunka yaayatiyo boqoldaas walayntii qalyada dhiigga gabdhaha kufsiga daa'imay oo ilmada daadi madaneeyo daabuunka iyo shacabka diifaysan
dayuusheen ayaa lagu matalay doodii ka istaagta doofaarkay ka sii hoos yihiin amase baayeer kulligoodna waa qurba joog waxaan leedahay iska diida waa wada dugaag reer dayuus bara ah marka kulligoodna baan dayuus bara ahayna laguma arkay intaasaan kusoo gabagabaynaya soomaaliduna inay iska dhiciso oo ducaysiga iska rabto oo kitaabka la qaadato ayaan kusoo gabagabayn lahaa waayahay aad baad u mahadsantihiin dhegaystayaal waxaa falanqayntaasi nagala qaybgelayay sida aad maqlayseen nabadoon maxamed axmed guuleed nabadoon cabdi axmed oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed iyo hareeri xasan barre oo isagu horey u ahaa guddoomiyaha balambal balse hadda ku sugan magaalada muqdisho tan iyo falanqayn noocan oo kale ah intaanu ku kulmi doonno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجد